مدون عدو قال شباب نكم بين نو قدرن أحمد مذوبة يا عدو قال شباب إنه قدرن قناع سحورة كما فركرت أذيقا أو قال جعل بميش لي هذا كسماي أو ده شيء كسماي أضو مريحانه أو ده شيء كسماي قناع سحورة كما فركرت أضو ده شيء عرمره قناع سحورة كما فركرت أنا أو ده شيء أوقادين قناع سحورة كما فركرت كسماي دقيست وحا إنه ديدن وشفت هذا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد إبراهيم عمر حلدون يا حكمة تي في يوتيوب مركو رئيس وادن سلام يا مرلبات وحنيدين هيا برنامج آد وحيس بدن أو كهلا جوبلاند برنامج كميس كنو سهران وجوبلاند عاوة ولا ليال مال والبود جوكتان وحد أكتهين إن اسمه جوبلاند لقصوا مردباتوين آد وفربدن ري جوبلاند waxay isku dayeen inay maamul sameystaan laakiin dawladii Xasan Sheekh way diidanayd tii Shariifka way diidanayd tan farmaajana waan ognahay Jubaland in ay iyada laftirkeeda ay diidan tahay maxaa jira what is going on maxaa loo isku haystaa Jubaland ama loo qaylinaya ama loogu dhagan yahay Axmed Madoobe marka my issues waxaan kala qaybin doonaa laba arrimood kow mid waa internal waxa Jubaland ka dhex jira midna waa external oo ah banaanka dawladda federaalka iyo waxa ay Jubaland ama ay ka damacsan tahay ay ka rabto madaxweynayaasha hore waxaan sheegnay inay diidanayeen formation of Jubaland inay Jubaland dhismato ama wax noqoto waxaan ognahay historically Jubaland waxa degan qabiilo far badan oo Soomaaliyeed waxaana la isku dayay in laga sameeyo maamulo Soomaaliyeed oo jira waan ognahay xilliye hore niman askara oo qabqablayaal ayaa haysan jiray magaalada Kismaayo waxaa lagu bartay ama laga helay dhaqaalo iyo lacag far badan oo loo isticmaalo hab qabiileed kadibna waxa qabsaday nimankii shabaab ahaa kadibna Axmed Madoobe meeshii yimid iyo teamkiisi dawladii federaalka ahayd way ka hor imaatay wayna diiday sababta ugu muhiimsan ay u diidaysay wax kale ma ahayn waxay rabtay in iyada dad ay influence ku leedahay oo qabaa'ilo kala ah oo aan ahayn dadka hadda Axmed Madoobe ku abtirsada in meeshaas ay qabsadaan ama loo dhiibo ama at least uusan maamul ka dhicin hadduu ka dhacayna maamul ay gacanta ku hayaan uu ka dhaco finally waxaan ognahay in lagu guuleystay in heshiis la galo dawladii Xasan Sheekh iyo Sheekh Axmed Madoobe ay heshiis galaan kuna heshiiyaan maamulka in la sameeyo Soomaalidana loo wada qaybiyo sidaas ayna ku dhamaatay bariga farmaajo yimid farmaajo marka not only inuu Jubaland uu dhibaato ku keenay ama uu la dagaalay wuxuu kaloo la dagaalay maamulo goboleedyo kale oo far badan oo Soomaaliyeed qaarna uu ku guuleystay inuu bedelo barnaamijkoodii iyo manhajkoodii iyo suuy asaga ka rabay qaarna uu ku guuleysan waayo kamid tahay Puntland iyo Jubaland marka horta historically insa loo fahmaan rabnaa kow nimanka hore inay diidanayeen ninka hadda joogo farmaajana inuu diidan yahay maamul dhaxal gala oo ka dhaca Jubaland waxaan rabaa marka dad baa qaylinayo leh Axmed Madoobe waasaan waxba ma qabanin waxba ma yeelin is true waxyaalo badan oo Axmed aan ku dhaliilayna way jiraan laakiin dawlad federaal ayaa meeshii joogta oo looga baahnaa inay qabato waxyaalaha ugu muhiimsan ee aas-aaska u ah nolosha ummadda ku nool Jubaland waxaan rabaa marka inaan dhowr qof waliba hal qof inaan kusoo noqdo oon keeno oo la yiraahdo duqbilow Soomaalidana ay taqaano Facebook iyo YouTube-na aad uga hadla oo waxyaalo fara badan oo aan maxaa la dhihi jiray ummadda aan u roonayn ka dhawaajiyay oo ay kamid tahay inuu rabo dadka inuu kala qaybiyo qabaa'ilo ama jifooyin hoose uuna kiciyo hadduu kicin karaba dadka indigenous-ka ah ee uu bixiyey ama la dhaho muxuu ahaa reer guriga ama reewaamaha والله بين ما عندنا كبقي بين حقيقة أنا ومدة وقاريسة رير جبلان روامو وياس علي السكر سلطان علي السكر انتو يلا جوغا هيرموغا انتو جوغا أنا روامو دنا انتا جوغنا قدي هنا وين جوغنا بهدل بان نقول السعودية لكن وانا سحريني هادان كنا واقعنا دغدغاق ديب حريني او ديغان نذا كحريو دادك كيمي توبي دادك وطدقان كي تكريق dadkan tahriibinayo dadkan naga dilayo dadkan magaraysa ay caburray marka
annagu in dad la dhaliila ma diidinin, in Axmed Madoobe la dhaliila ma diidinin, dowladdiisa in la dhaliila ma diidinin, laakiin waxa meesha aan fiicnayn is in dadka la dhaho kaca hub qaata ha la iska celiyo Axmed Madoobe oo aan macno fara badan hadda ku fadhinin. Axmed timekiis ugu dhamaanaya walow ay tiri dowladda federaalka ahayd 2 sano baan aan u kordhinay. I don't think taan inay shaqaynayso. Axmed 4 sano ugu dhamaysan doonaa, laakiin dadka reer Jubbaland ee ku abtirsada ee waxgaradka ah ee aqoon-yahaniinta ah waxaa looga baahan yahay inay hadda dejiyaan modalitigii Axmed lagala wareegi lahaa meesha. Markii u dhamaato 4 sano Axmed in lagala wareego Jubbaland oo dad cusub iyo dhiig cusub ay meesha imaadaan. Waxaan ognahay in ay rag ka garab sheegteen Axmed Madoobe madaxweynayaal doorashadiisii markii uu ay dhamaatay. Waxaan ognahay in dadkaas uu leejiyay ay isku jidna mareen oo maanta isku jid ay yihiin. Marka haddii aan marka hore ku eedeynayna hataa Axmed doorashadii uu ku shubtay ama uu xoogay ama uu boobay, raggii markaas la tirtamayay ee laga boobay way la joogaan maanta saaxiibay leeyihiin. Marka waxaan rabnaa Soomaaliyeed in loo fahmo Jubbaland waa nabad, way fiican tahay, dhul fara badan oo ka maqan ugu jira oo ay ka mid tahay Jubbada Dhexe oo muddo fara badan aan ka qaylinayno rabnay Jubbada Dhexe in la xoreeyo. dowladda federaalkana ku guuleysan weyday, dowladda Jubbaland ku guuleysan weyday. Dadka Jubbada Dhexe degan waxa u baahan yihiin inay is organize gareeyaan oo ay u kacaan sidii Jubbada Dhexe loo xoreyn lahaa. Marka aan u soo noqdo duqbilow oo dadka kicinaya oo qabiil u kala saaraya clip ugu horeeyo horta ila arka isku magacaawday Jubbaland wax la yiraahdo inay jirto anigu hadda maba aaminsaniba. sababtoo Jubbaland waxa la yiri waa 3 gobol, 3dii gobolna Axmed Madoobe gacanta kuma hayo. Soomaaliyeed meesha la yiraahdo Kismaayo xasuuq baa ka socdo, bahdilaad baa ka socoto, ceeb baa ka socoto, qabiil baa ka socdo, intii xumeed ee laga reebay oo dhan baa ka socoto. shalayto magaalada Kismaayo waxa laga tarxiiliyay muwaadin Soomaaliyeed. Kismaayo wadarteen ninka wuxuu sameynayo waxaan u naqaanaa qiiq isku qaris. ujeedka maanta loo qaylinayo Jubbaland iyo Axmed Madoobe loogu dhagan yahay ma aha Jubbaland inay hagaagto ama la hormariyo ama wax kale laga qabto. ujeedka doorasha soo gashay waa qiiq isku qaris baa la dhahaa. marka madaxweyne Farmaajo recordkiisa loo baahan yahay in banaanka la soo dhigo oo laga hadlo 4 sano uu joogay ama intuu joogay wuxuu qabtay, Jubbaland u qabtay, Soomaaliya u qabtay, dadku u qabtay iyo wuxuusan qabanin ma in laga hadlo u baahan oo laga doodo. marka waxaan dareemaynaa influence inuu jiro in Soomaalida walaahow la geliyo oo buuq la geliyo si focuska la leeyahay uu u lumo. Right now the focus is ama focuska hadda jiro waxa weeye doorashada saan ku helnaa qof matali kara Soomaaliya u qalma, ruux u qalma inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. This is waxa hadda dadka hor taagan ama hor yaala. ma hor deelo Axmed Madoobe asaa yeelay ama ma yeelin. That is not the reality now. The reality aan u baahannahay ummad Soomaaliyeed hadaan nahay waxa weeye doorashada hadda nagu soo fool leh iyo wixii laga qaban karo. another barnaamij baan kaga hadli doonaa insha Allah oo kooban oo aan rabo inaan ku tusaaleeyo Soomaalida sida ay wax u jiraan iyo yaa u qalma in la doorto ama madaxweynaha Soomaaliya ka noqdo. laakiin for now waxaan rabaa kaliya inaan dhaho dadka qaylinaya oo duqbilow uu ka mid yahay meeshaas idinkama jirto. Prime Minister ka yimid Kismaayo shirar fiican buu ku galay, madaxweynuhu la kulmay iyo dadkii markaa meesha joogay. riboodyo fiican buu ka soo qaaday Kismaayo. laakiin waxaan ognahay weli in la qaylinayo lahaa ra'iisul wasaare waxaa tagtay magaalo xun, waxaa yeeshaysaan ha yeelin, waxaan iska ilaali iyo wax fara badan oo loo joogin. marka dadka nabad iyo deganaan ayaa anfacaysa, ummadda Soomaaliyeedna taasaa dan u ah. waxaan rajaynaynaa in ay dadka wanaagsan ay ka bataan dadka xun.
insha allahu haddii aadan weli subscribe noo saarin waxaan kaa rajeynaynaa subscribe inaa noo saarto khayr iyo baraare asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu